muddo badan aqoon-yahanada falagu waxay aaminsanaayeen kownku in aanu lahayn bar uu ka soo bilaabmay oo uu ka soo unkamay hase ahaatee aragtida waxaa meesha ka saaray markii aqoon-yahanadu ay ogaadeen kownku inuu ka soo bilaabmay qarax weyn oo falaga ka dhacay waa aragtida loo yaqaano big bang theory ama al-infijaaru alcadiim dhanka kale 1400 oo sannadood ka hor ayuu qur-aanku inoo sheegay in kownku uu ka bilaabmay qarax weyn oo qaabeeyey samada meerayaasha iyo qoraxaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ilaahay kuwa ilaahnimadiisa diidan ee waxyaalaha kale caabudaya miyaanay ogeyn samooyinka iyo dhulku inay isku dhegsanaayeen dabadeed aanu kala geynay qaraxa weyn kadib waxaa samaysmay jusaymaadkii ugu horreeyey ee kala ahaa proton neutron iyo electron kuwaas oo horseeday noloshu adduunka inay ka suuro gasho in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aadamaha faray cirka iyo samooyinka inay eegaan oo ay ku cibro qaataan kownka iyo abuurtiisa sidaa awgeed muuqaalkan maanta waxa aynu isku dayaynaa in aynu eegno xoogaa ka mid ah aqoonta aadamuhu ay ka gaadheen kownkan aynu ku noolnahay haddii aynu ka bilowno meeraheenna oo ah meeraha dhulka waxa uu dhulku ka mid yahay nidaam qoraxeedkeenna loo yaqaano solar system nidaam qoraxeedkeennu waxa uu ka kooban yahay 8 meere oo qoraxda ku wareega waxa aanay kala yihiin dhulka mars oo soomaalidu ay u taqaano faraare neptune saturn venus oo soomaalidu ay u taqaano waxara xidh uranus jupiter oo soomaalidu ay u taqaano saxal cadde iyo mercury meeraha dhulka ugu dhowi waa meeraha mercury waxa uuna inoo jiraa 140 milyan oo kilomitir halka meeraha neptune uu yahay meeraha ugu fog meeraheenna uuna inoo jiro 4311 milyan oo kilomitir wareegga meeraheenna dhulku uu qoraxda ku wareego waxaa ka dhasha 4 xilli ee kala ah guga dayrta xagaaga iyo jiilaalka halka wareegga uu xuduntiisa ku wareego ay ka dhashaan isweydaarka habeenka iyo maalinka nidaamkeena qoraxdu waxa uu ka mid yahay galaxy lagu magacaabo jidcaanood ama milky way waa galaxy ay ka tirsan yihiin nidaam qoraxyeeyo tiro badan oo nidaam waliba uu leeyahay qorax iyo meerayaal u gooni ah haddaba aan ku weydiiyey imse nidaam qoraxeed oo keena la mid ah ayay kula tahay inay ka tirsan yihiin galaxyga milky way inta iminka la ogyahay waa 3916 solar system ama nidaam qoraxeed taas waxay ka dhigan tahay waa 3916 qoraxood oo mid waliba ay leedahay meerayaal gaar u ah oo ku wareega galaxyga milky way meerayaashiisa wadartooda waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 800 oo bilyan iyo 3 trilyan iyo 200 oo bilyan oo meere waa galaxygeena milky way oo keliya markaa talow kownkeenna guud ahaan imise galaxy ayaa ka jira inta iminka aadamaha aqoontiisu ay gaadhay tirada galaxyada kownka ka jira waxaa lagu qiyaasaa in ay gaadhayaan 2 trilyan oo galaxy waa 2,000 oo milyan oo galaxy oo isugu jira galaxyo ka yaryar galaxygeenna iyo kuwo ka waaweyn oo mid waliba celcelis ahaan uu leeyahay nidaam qoraxyeedyo la mid ah nidaam qoraxyeedyada galaxygeenna oo ahaa inta u dhaxaysa 800 oo milyan iyo 3 trilyan iyo 200 oo milyan marka abuurta kownka aad u fiirsato waxaad ogaanaysaa heerka awoodda ilaahay ay gaarsiisan tahay subxaanahu wa tacaala iyo heerka awoodda aadamuhu ay leeg tahay dhibicdaa yar ee dhulka lagu magacaabo ayay ku soo noolaadeen cid kasta oo aad taqaano ama aad maqashay boqor kasta oo kibir badnaa nin kasta oo ilaahnimo sheegtay awood kasta oo aadamaha kala muquurisay nebiyadii ilaahay uu soo diray ee qur-aanka uu ku sheegay qowmankii hore ee ilaahay uu halaagay iyo aadamo kasta oo waxqabadkiisa sooyaalka lagu xardhay waxa ay ku soo noolaayeen dhibicdaa yar ee aad u jeedo isaga oo ka hadlaaya dadka istiidsiinaya jiritaankiisa ayuu ilaahay yidhi سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
astaamahayaga waxa aanu ka tusi doonaa oo ay ku arki doonaan dhulka iyo cirku halka ay iska galaan iyo sidoo kale nafahooda gudahooda si ay u ogaadaan diintan inay tahay tii xaqa ahayd. waxaa intaa dheer aqoonyahanada falaga ku xeel dheeri waxay ogaadeen kownku inuu fidayo oo mar walba uu sii ballaaranayo, taas oo ahayd xaqiiqo qur-aanku uu sii sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. samada saqafkeeda awood ayaanu kor ugu qaadnay wa innaa la muusicuun waananu sii fidinaynaa. kownku waa aayad ka mid ah aayadaha ilaahay ee cibraqaadashada mudan. waa meel qofku marka uu u daymo badiyo iimaan iyo alla kacabsi uu ka dheefaayo. waa meel uu ka dheehanayo dhammaystirka abuurta eebbe. sidee ayaanu uga dheehanaynin iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi ilaahay waa kii abuuray 7 samo oo isdul saaran. abuurta eebbe ku arki maysid wax kala dheeris ah ama kala duwanaana. farjici albasara hal taraa min futuur, bal araggaaga mar kale samada dib ugu celi. miyaad ku aragtaa wax dildilaac ah? haddana mar kale bal eegmadaada dib u celi. araggaaga oo hungoobay ayuunbaa kugu soo laaban doona. aayadaha ilaahay waxa ay isugu jiraan kuwa la akhristo iyo kuwa la dheexdo. haddii qur-aanku uu yahay aayadihii ilaahay ee la akhrisanayay, abuurtiisa iyo kownkuna waa aayadihii ilaahay ee la dheehanayay.